Sawaxanka dhagihiina soo gaadhaya waa astaanta qaranka dalka Singapore. Waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aanu iniga diyaarinay dhawaanahan dalka Singapore. Halkan waa Nil Media. Singapore waa dal yar oo hal magaala kaasoo ah jasiirad yar oo dhacda koonfur bari qaaradda Asia. Waa dal baaxad ahaan aad u yar oo ku fadhiya baddan 722 kiiloomitir oo wareega. Singapore waa jasiirad kaabiga ku haysa Malaysia. Dadka waddanka dega waa Chinese, Malay iyo Hindi. 1963 ayay xornimada ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska. Isla sanadka ayay go'aansadeen in ay la midoobaan Malaysia oo ay u arkayeen dal ay isku dadiheen. Balse nasiib darro 2 sano kadib 1965 baarlamaanka Malaysia ayaa u codeeyay in ay Singapore ka go'do Malaysia iyagoo sheegay in ay tahay jasiirad yar oo kaneeco badan, dad saboolana ay ku nool yihiin, taasoo aan faa'iido ugu jirin Malaysia. Markii ay Malaysia caydhisay Singapore, Lee Kuan Yew oo hore u ahaa guddoomiyaha Singapore ayaa ra'iisul wasaaraha dalka loo magacaabay. Waxa uuna u tafaxaytay sidii uu Singapore uga saari lahaa duruufaha adag, ugana mid dhigi lahaa wadamada ugu hodansan dunida. Taariikhdu waxay qoraysaa Lee inaanu ka bixin dalka muddo lagu qiyaaso 8 sano. Socdaalkiisii ugu horreeyay uu dibadda ku aado waxa uu sameeyay sanadkii 1973. Lee Kuan Yew sanadkii 1990 ayuu xilka ka degay isaga oo loo aqoonsaday aabihii dalka. Waxaana uu sababay Singapore inay noqoto maanta xarun caalami ah oo hoy u ah waxbarashada, madadaalada, dhaqaalaha, daryeelka caafimaadka, raasamaalka, hal-abuurka, saadka, wax-soo-saarka, tiknoolajiyadda, dalxiiska, ganacsiga iyo gaadiidka. Waddanku waxa uu ku jiraa heerarka caalamiga. Waxaa loo aqoonsaday in ay tahay Singapore dal haysta tiknoolajiyadda ugu sareysa taasoo mar walba diyaara. Waa dal ay ku kulmaan hay'adaha iyo shirkadaha ugu waaweyn dunida ayna ka dhacaan shirarka caalamiga. Waa dal leh maalgelinta ugu wanaagsan dunida. Singapore waa dal aad u qurux badan, sidoo kale waa dalka ugu amniga badan dunida. Waa dal leh dhaqaalaha ugu firfircoon caalamka, dal kaalinta 3aad kaga jira wadamada ugu musuqmaasuqa yar caalamka, dal uu ku yaalo suuqa sarifka 3aad ee ugu weyn caalamka. Dalku wax kheyraada ma leh oo xitaa ma laha dhul beereed ay wax ku beertaan dadka reer Singapore. Khudaarta laga isticmaalo oo idil waa mid dibadda kaga timaada. Sidoo kale ciidda wax lagu dhiso xitaa dibadda ayay ka keensadaan. Sidaas oo ay tahay waa dhul cagaar ah ayna ku yaalaan daaraha ugu dhaadheer uguna qurxoon caalamka. Sidoo kale waa xarunta 3aad ee ganacsiga dunida, xarunta 3aad ee dunida ee shidaalka lagu nadiifiyo, dalka 5aad ee ugu hal-abuurka sareeya caalamka, sidoo kalena leh dekedda 2aad ee ugu mashquulka badan dunida. Sidoo kale Singapore waa magaalada ugu nolosha qaalisan dunida, taasoo muddo badan soo ahayd. Dekedda Singapore waxaa lagu tilmaamaa inay tahay hormuudka dekedaha caalamka, si la mid ah garoonka diyaaradeedka Changi ee Singapore waa kan ugu wanaagsan caalamka. Diyaaradda Singapore Airlines waa diyaaradda ugu wanaagsan caalamka, iyadoo sanadkii hore loo doortay inay tahay tan caalamka ugu wanaagsan heerka horumarka aadamaha. Singapore waa dalka 9aad ee caalamka ugu horeeya. Waddanku waa dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka. Dhaqaalaha dalka waxa uu kor u dhaafayaa
$370 bilyan oo dollarka Mareykanka, kaasoo ka mid ah 30 dal ee ugu horeeya dunida. Sidoo kale dalku waa kan saddexaad ee ugu hodansan dunida. Dakhli sanadeedka soo gala dadka Singapore waa $98,000 oo dollar sanadkiiba. Waa dal aad ugu horeeya hanaanka waxbarashada. Jaamacadaha Singapore waa kuwa ugu wanaagsan guud ahaan Asia. Sidoo kale daryeelka caafimaad ayaa aad u wanaagsan. Dadka reer Singapore waxaa la tilmaamaa in caafimaadkooda ama cimrigoodu gaaro ilaa 80 sano celcelis ahaan. Wadanka waxaa ku nool 5.7 milyan oo qof. 39 dadkaasi waa ajaanib dalka degan oo ka shaqaysta. 4 luuqadood oo rasmi ah ayaa looga hadlaa, kuwaas oo kala ah English, Malay, Mandarin iyo Tamil. Wadankii la ceyriyay ee kaneecada iyo faqriga hoyga u ahaa, maanta waa mid hormuud u ah dhaqaalaha, tiknoolajiyadda, aqoonta iyo hal-abuurka dunida. Waxaa heerka gaarsiiyay nin loo arkayay inuu ahaa hogaamiyihii ugu wanaagsanaa qarnigii 20aad, waa Lee Kuan Yew. Singapore waa tusaalaha dal kasta oo xaaladiisu ka hooseyso meel liidata. Waa tusaalaha dunidu eegato. Haddii aynu Soomaali nahay, waa tusaalaha rasmiga aynu qaadan karno, maadaama uu wadankeenu ku jiro xaalad cakiran. Aqoonyahanka, siyaasiyiinta, culimada iyo waxgaradkaba waxaan ugu baaqaynaa in ay lugadaan xaaladan ay Singapore martay iyo heerka caalami ay hadda taagan tahay. Waa mid cajaa'ib ah. Intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal. waa warbixintii ku saabsanayd dalka Singapore. Halkan waa Nile Media, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdallah Axmed Siciid Waqooyi. Wixii intaas dheer waxaad ka dhugan doontaan YouTube-ka bartaanu ku noolnahay ee Nile Media. Isla socod wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudano.